maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga dhagaysanaysa waa maxaa cusub iyo maxaa maanteena kale nagu cusub bishii ramadaan ayaa fooda inagu soo haysa ilaahay khayrkeeda hayna siiyo dhowr cishaa ka harsan haddaba maxaa ka wanaagsan bisha ramadaan iyo markaasi waayaheeda aynu iska waraysano laakiin maxaa kale ka wanaagsan in dhowaan masaajid la aasaasaya oo shaadibiya aasaasayso oo ka aasaasayso bariga London aynu warkiisa helno maxaa ka wanaagsan culimadii aasaastay oo markaasi macallimiintii iyo iimaanadiiba halkan ay nala fadhiyaan aan ku soo dhaweeyo labada sheekh ee maanta halkan la fadhiya عبد الفتاح علي أحمد iyo محمد حسين علي محمد ما شاء الله aad doorta soo dhaweena maxaa isku soo dhawaada جزاك الله خير waxaan u malaynaa rabadaantii waa ina hayso saamisaaliya tuurta diyaar waa laga sii fikiraya ما شاء الله ما شاء الله hadda marka hore labadii waa soo dhawdihiin bisha rabadaanna waynu iman doonaa doorta shaadibiya dad badan oo anigu aan ka mid ahay aqoon badan manhig goorta la aasaasay iyo waxay qabato imikana mashruuc cusub baad bilowdeenoo risaarjiina markaa ka qaadataan an cabdifatax ka horreeyo cabdifatax shaadibiya goormay aasaasantay muxuu shaadibiya maxay tahay waa mahadsantahay khadarow haddii aan u imaado su-aashaada jawaabteeda shaadibiya waxaa la bilaabay 2008 xilligaas oo ay ku bilaabantay koox waalidiina iyo koox macallimiina oo isu tegey dabeetana ka fikiray carruurtooda iyo mustaqbalkooda iyo horumarinta carruurta ubadka ilaa iyo maalinta iyo maanta shaadibiya way shaqaynaysay waxaana ka qalin jebiyey kumanaan qof marka la isu geeyo oo xufaada iyo culimo ah waxaaba taa kuu dheer inay hadda masaajido waaweyn oo dadka kale muslimiinta leeyihiin ay dadku ama culimo ka yihiin ama ay masaajido cusub furteen baa ardaydii hadda arday laftoodii oo masaajido cusub oo ku yaala qaarkood ku yaalaan galbeedka London iyo bariga London waliba bariga fog London ku yaalaan dadkaasi ma aha Soomaali qura khadarow oo isku jir waxaa ku jira Soomaali waxaa ku jira Bangladesh iyo jaalida kale muslimiina lano marka la joogo halkan Soomaali qura lagu ma xisaabtamo waxa lagu xisaabtamaa community weyn ama jaalida weyn oo leeyahay jaalida muslimiinta taasoo ka ah 6 milyan ku ah dalkan Ingiriiska waay 6 milyan waxa u dhigan taban maleenaya boqolkiiba 2 mise hal saasoo kala aad bay yartay saadarteed waxay gacmuhu wax ku gooyaan wadajir shaadibiya markaa waxay ku asaasan tahay dadka marka hore Soomaali baa asaastay bilowga laakiin hadda way gudubtado way dalaacdo waxay gaadhay wax weyn meel kale ay ku socotaa ma sha Allah way marka xufaadii waa ka soo baxday maxamed adiguna deyn badan marka macallin waad ka ahay wax badan oo soo taagneed xufaad ma inoo baa soo hableeyna ma wadayi aad iyo aad baad aadam u mahadsan tahay wariye runtii jazaak allahu khayran sidaad ugu howlantihiin wanaagga iyo bulshada iyo horumarinteedaba ka TV ahaan waa idinka mahad celinaynaa kulanka qiimaha badan marka hore marka labaadna haddaan kusoo dhawaado su-aashaada jawaabteeda runtii dadka ka faa'iidaystay ashaatibi muddadii ay jirtay oo runtii muddo dheer ah oo marxalado kala duwan iyo xaalado kala duwan ay kusoo shaqaysay welina ay safarkii iyo jeenigeedii nooca ku saabsan ay ku jirto iyo horumarka bulshada dadka ay soo saartay rag iyo dumar yaryar iyo waaweyn Soomaali Bengali Afrikaan Carab Cadaan cid walba waa ka faa'iiday ashaatibi ceelkeeda cid waliba ka cabti ilaahay baa mahadlay waxaan u maleynayaa su'aasha ka jawaabay intii ay jirtay markaa waxaan su'aasha ku daynaa markaa shaadibiya markaa madrasad baa la yimaadaa ma masaajid baa sideen hore loo soo dhigtaa kaasna modern masaajid baa ما شاء الله runtii su'aal u baahan runtii halkeeda aad digtay weeye jawaabteedana runtii waxaan oran lahaa shaadibiya maaha masaajid keliya mana aha malcaamad keliya mana aha program gaar ah kuma saabsana madaan iyar dib ugu noqdo shaadibiya qaybaha ay ka kooban tahay waa madrasadii quraanka 1 macahadkii diiniga 2 qaybtii jaamacadda 3 qaybta ijaazada iyo qiraa'aadka qaybta dadka cusub ee muslimiinta ah ee soo islaamay iyo sidii wax loo bari lahaa qaybta dhalinyarada iyo youthka oo youth club iyo runtii loo sameeyo qaybaha ay bulshada iyo runtii horumarinteeda qaybta xiriirka bulshada qaybta maxaan idhaahdayay runtii ku saabsan kaalmaynta dadka baahan
iyo dadka in la caawiyo u baahan hadday waayeelka yihiin hadday dadka xanuunsanaya yihiin weliba waxaa cajiiba oo sanadkan aanu ku guuleysanay caruurta xanuunada runtii sandiga la yidhaahdo ama special needka ayaa waxaan u tijaabinay oonu macallimiin u tababarnay inay bal alifkiina u dhigaan diintiina wax ka baran karaan oo iyaga laftooda wax baran karaan kalaas baanu u furnay waxaanu tijaabinay inay wax baran karaan oo cashirkii shalay la siiyey maanta inta ilmo yaroo special need la weydiiyo inuu ka jawaabi kara baanu tijaabinay falilahi alxamdu marka adeegyada ay bulshada u hayo masjid shaatibi yar yar iyo waaweyn iyo dhammaan noocyada bulshada kala duwan iyo qaybo kala duwanba way leedahay marka iyada wari waxaa dhameeyey maxamed inkastoo su-aashu su-aal ballaaran tahay haddana jawaab kaafiyaho ballaaran buu ka bixiyey laakiin waxaan ku darayaa hal kelmad baan kusoo ururiya anigu waxaa la yidhaahdo masaajidada ku yaala dalalkan galbeedka reer galbeedka waxaan rahdaa masaajidadu waa inay metelaan hal arrin oo ah dowladda islaamka oo aan ciidan lahayn shaqadaas ayay qabtaan marka waxa weeyaan waxay qabtaan shaqada bulshada u baahantoo dhan hadday tahay oo garnaq hadday tahay dhanka waxbarashada dhanka shuuqaad uga hadlay dhanka bulshada oo dhan dhalinyarada ciyaarta masaajid dhexdiisa marka qaar kubad lagu ciyaaraa taasina waxaa maalinaya Soomaaliyeed way ugu cusub tahay jiimkii kubadii hadda dee jiimka waa ku soconaa mar ka hadli doonaa laakiin hadda kubadaan u maraynaa legdintiina waa lagu ciyaaraa marka masaajidka marna xalqada iyo quraanka fiqi qof fursanayo luqad carabiya marna uu legdinta dhalinyarada ku ciyaarayaan habeenkii ku ciyaarayaan ويا مساك شادي بلغو شيغي واكاس مرنا شركه لغو قبسanayo marna dadka la isugu meerinayo marka waxa weeye shaqadii ayuu hay'ad dawladdu lahayd dawladdu ayuu metelaya waxa ka qayb qaata arrinta siyaasadda doorashooyinka haday tahay waxa laga weydiiyaa wadanka doorashooyinka awood buu ku leeyahay degmada deganoo kale adnaaw ka hadlaynoo kale tawraham waxa weeye doorashada waa khasab inay soo maraan anaga hadib dikii taageero doonaya in lagu dagaalamo soo maro la baryo tamo hadda aanu anagu gaarno inaan anagu hebel baanu sharaxaynaa yaa noo raacay marka ninkii aan anagu sharaxnay la isku qabso leeyahay aniga xisbiyadu ma sha Allah halkaas ay doono mars marka meel weyn bad ka ciyaaraysaan marka loo sheego runtii bulshadii maanta meel fiican bad ka ciyaaraysaan inaad siyaasadii wadanka ku jirtaan inaad marka diinta ka bartaan afadax marka intii adigu muallifka aad ka ahayd adigu waxa ka soo baxday islaamic style ka soo baxday Pakistan ka soo baxday in badan wad ku jirtay dacwo islaami ah sidoo wuxuu baran jirnay wadankii wada weedo kitaabkii wad ku soo baratay wadankii marka ma waxaad bedesheen systemkii wax loo baranayay oo wadinka lagdinta masaajka keenay iyo kubadda keenay mise wax si bedeleen waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah laakiin waa inaynu fahanno shariicada islaamku waxay la socotaa waaqica xilliga marba la joogo kama dambayso saadartay si xilliga uu la socoto wadanadan aynu nimiyay dalalkan reer galbeedka aynu sharci bay leeyihiin sharciga horta waa la jaan qaadi kow macalinka ama ninka madrasa ama masaajid furaya sharciga wadanka waa inuu la jaan qaado waa qodobka labaad kayfiyadii wax loo dhigi jiray in ka badani diinteena ma waafaqsaneen haday noqoto carruurta la garaacayo haday noqoto macalinka adagaan qoslayn oo macalin gebiisu wajiga kaga qorantay inuu xanaaqmo soo galo kaasi waa la tuuray leeno nabiga sallallahu alayhi wasallam siirada laguma hayo macalin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa macalinkeeni miyaad ku haysaa in diinta aad u yaqaanaa tahay miyaad ku haysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam qof quraan ku diray inuu xiftiyo مشروط صوما سادرتد وحرقات سوج على سيموين سو كما هيسد ان نبيga masaajidkiisa sallallahu alayhi wasallam lagu ciyaari jiray waa shay daawanaysi marka la sugeeyo daliilada badan waxa soo baxday sharaxadu in u baahan tahay toos loogu dhaqmo maaha in maryaha laga qaato wara sax ama intay noo muuqatay inaga diintu oo wax ballaaran waxa u baahan tahay dhalinyarada kala duwan soo gelaysa midba dhaqan buu la soo gelaya qaar ba timoodu tidcan yihiin wadaalka reer galbeed qaar ba timoodu dheer yihiin soma qaar suwal yaro gaaban sita waxa u baahan tahay wax ka weyn badbada ka jira oo ah arrin la kaxaysanayo si loo kaxaysan aad weyn soo kaxaysatid marka wajigaagu waa inuu furan yahay soma ila albaab furan lama galay waji furan balaga wajigaagu adoon furnayna ciyaarku dhalinyaro ma soo geliso marka waxaan u tuurnay macallinimadii aan waxa ku soo baranay marka macallin shaar cusub baan ka shanay modern teacher macallin dabacsan way وشي دوران مال بعد دكتين وشي وابن مركان soo galnaa tuurnay ba waa وشي mar hadda dibadda soo dhigtay waxa u baahan tahay sanado badan inaad bedeshid iska yeel sameeysid marka dambe waa la qabsanaysaa nolosha la qabsanaysaa nolosha la qabsigu marka maadaama carruurta ay saatay carruurtu waxay ka arkeen
waxa ay doonayeen macallin dabacsan macallin u qoslaya macallin u sheekeynaya macallin la shaahaya inay iyagu marka dambe kuu keenaan shaahayo hadiyadaha wala kala guragurowaa noqoto la macallinka waa la saaxiib kuwii ka baxay baa hadda ka wada macalliya haystaba meesha way taa waan gartay runtii wax badan baad qabataan wax badanna waad samaysaan ayna khayrkeeda hayna siiyo amiin xawdaaqo challenge uu badan yahay waalidka laftiisu marka iskuuladii dee tagaan ay soo arkaan shaxshax badan iyo idinkoo markaasi 40 ciyaar meel soo keenay eran inta dee kale aysan ognahay xagga caqabadaha waalidka war runtii waalidka laftiisu waa u mahad celinaynaa runtii jazaahumullahu khayran runtii waa dad aad iyo aad iyaga laftoodu una waayo araga una dadaalay waaqaca iyo wadciga iyo meesha lagu nool yahayna runtii wax badan oo qayb badan oo ka mid ah aad u fahansanna saacadahan kooban ee ay joogaan madrasadu inay mudnaan gaara u leedahay ilmaha oo xataa dhacdooyinka cajiibka leh la kulannay ama waalidiinta kala kulannay waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa ilmuhu inaanay isku fahan iyo isku garasho iyo isku cashirka isku weelayn ba ahayn isku xifdi ahayn waxaa laga yaabaa macallinku inuu is yidhaahdo war ilmahan aad waqtigan dhan meesha ku hayso soo saaristiisa wuxuu kaaga baahan yahay inuu wax kaala yimaado dabeedna waalidku uu yeedho yidhaahdo ilmihii waaniyo sidaasaan u sameeyo sidaasaan sameeyo weli cashirkii muu soo baran malaha haddii mar haddaan waxba baranaynin booskan cid kale oo wax ku baran lahayd ha loo baneeyay guriga iska joogo waalid baa sidaasoo kale ku dhacday kadibna wuxuu yidhi war nimayow waxba idiin sheegaa anigu ilmahaygu meelna uma wado waxba iyo ii baranine muuqaalka islaamka ee ummadda lagu soo dhex darayo ee aadaanka uu maqlayo carruurta kale la tukanaya macallimiinta falowgaraynaya macallimiinta la tukanaya ee dhaqanka u arkaya baan doonaya marka wacyiga waalidiinta laftiisu aad iyo aad buu fiicay macallimiinta iyo wada shaqaynta waalidkuna aad iyo aad buu fiicay waxaana sodhan lahaa runtii haddii sidaa laysula sii jaan qaado in ummad runtii wacyi gashan oo isku xidhan oo ishaysata laga dhisi karo isfahamka noocaas oo kale aad iyo aad mar adiga sheekeynaysay interview hore aynu samaynay xaafadan babla halkaan joogna kama fogeyn mar maayo halkaad ka bilowday waxaana ahayd baahida waalid bahayd soo maha baahi waalid bahayd say shaadiya ku timi markaas haa baahid waalid bahayd waalidiin baa isu tegey dadkaana way soo waceen waanu isu tagnay waalidiintii iyo anaga maxaan sunimi waxaa ka dhalatay waalidiin weliba kooban bay ahayn waalidiintii waxaa ka dhalatay in madrasa shaadib la asaaso 2008kii 2008 xilligaasoo baahidu aad badnayd xufaaduna dalka waa ku yareed beriga oo dibadaha laga keeni jiray Soomaali ahaana waan ku yareed laakiin qabiisyo badan baynu siinay oo marihii dawladdu way naga muuqdeen laakiin dadka markii hoos loo eegay waxaa la waajiyay rabadaanta ciid masaajid tujisay aynu leenahay Soomaalidu leedahay dadka fikirka wuxuu ka bilaabmay waalidiintu in carruurtooda badbaadiyaan iyo in ummadii loo soo saaro hogaankii mustaqbal hogaamin leh markaas wuxuu ku duway maragista kale waa markaas dhalinyaro xukunto ku dhisan tahay haystaan waxa kaloo dheernay anagu gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada la fadhiya gudoomiyana waa dhalinyaro kale waa aad bay isu taqaaniyo saaxiibatiin waxaa loo dheer waa masaajid guddigiisa sare u talisaa ee raggii dumarka ka kooban tahay hablo iyo wiilal waxaa malaa masaajid lama arag dumar talada haya marka igu celi halkaas adaan ku balbalaaday marka maduura masaajidka maamula dumar baa ku jira guddiga masaajidka maamusha ha way okay guddiga trustee baa leeyahay qaybta majlis umar ama u sarreeya gola mustambeedka mustambeed dumar ma inaan maqal ma maanta way ku jiraan masaajidka mustambeedkiisa waxaa ka mid ah guddi rag iyo dumar isugu jira gola bilaa shaarba maan maqal weliba oo dumarku weliba badan yihiin haddana shaqada ay qabtaan aad u sarreyso dumarkaasi hadda markii hore dee meesha iyagana bilaabay oo hablay baa ahaayeen wixii u badnaa meesha bilaabay maanta waxa weyn waa hooyooyin waana shaqaale oo shaqeeyaan masaajidkana waqti dheeraad badan bay geliyaan iyagu waxba ka doonin iyagu time waqtigoodana way geliyaan qarashkoodana way geliyaan masaajidka maxaa marka looga baahan wuxuu dhan isku ilaaliyo waxaa ku dheer wariye oo muhiim ah inaan fahanno masaajidka wuxuu dhigaa luqadda Soomaaliga si dhaqanka Soomaaliga loo ilaaliyo ilmaha halkan jooga suu dalkii ugu xidhmo luqadda Soomaaliga ma dhigan iyadoo naga caawiso dowladda Ingiriiska waliba qaybteena maayarka Tower Hamlet naga caawiyo Soomaaliga dhigtaan Soomaaliga dhignaa iyo af Carabiga labada waa dhignaa hadda waxaa la yaraana soo wadnaba luqadda Bangladesh-ka lafteeda hadda waana yara ballaaranay halkaasoo marayna wixii kala gudooy ku xiga ugu tagay adiga way runtii waan ognahay shaadibiya iyo waxay qabatay in badan baa sharaxdeen oo mashaa dadku badan isku xidhan yihiin baati waad ka soo gudubteen imika waxaad
markaa shaadiya qofkaan aqoon haddaan u sawiro wuxuu ku yaalaa New York buu ku yaalaa Soomaa ها marka waa meel cabirkeeda markaan caynkaa u qiyaaso imika masaajidka halkaas sheegaysa halka dadka imika wax ku dhigtaan lagu tukadaa halka wax ku dhigtaan maaha صح waxaan malay xaggaana 15 buu yahay واسداس xaggana 5 buu yahay واسداس masaasuma واسداس marka كمان فوق saddex suuli ku yaaliin haddaan saddex suuli ku yaaliin ها oo ay ku taalo meeshii lagu weysaysanayay aad buu adag اوفيسنا كو يالو لي office-na ku yaalo صح meel yar shaha lagu cabaano ku yaaliin كنت markaa dadka daawanayo horta markaan ka sheekeynayna ee واسداس dadka laga soo saaray waa kaas anigu markaan dee eegayo ama waddankaan joogo waa dee waa qoobad masha waxay ahayd qoobad. meherad ها ganacsi bay ahayd رب بدكان ير markaad masaajid ka dhigteen صح halkii imika waad ka soo raraysaan oo kale meelo kale iskuullada carruurta quraanka waad ugu dhigtaan واسداس laakiin ubaciin waa halkaas وعدوا هلك ها مايش ويا لك حكم imika waxaad dalbateen mashruuc cusub halkan waxaad maanta noogu timaadeen in mashruucaaba noo sharaxdaan masaajidkaa ballaaran ee markaasi tabarucaadkiisiina website-ka waynu gelinay oo qofku halkaasuu ka tabarucaya waxa awoodo bal labadiina waan soo dhex dhigayaaye bal mashruucan cusub iyo shaadiyo masaajidkan cusub ee aasaasayso bal nooga warrama جزاك الله خير شعب استحوا مهتسين هي وري خذنا ومهد علينا جزاه الله خيرا سدا وناكسن يا soo dhigtay kullu shaqada qabanaysa imika noo haysaa waa shaqo wariinimo anyway adigu iska wadiido marka taas weeye haddaan qodobka ku soo dhawaado shaatibi runtii adigaaba tilmaamay oo sidaad u tilmaantay aad u cabirtay aad u qiyaastay aad u tirisay ayaba cajiiba annaga intaas waaba inaga maqnayda hadda kadib aan ku darsanaynaa exactly cabirka intaa la eg waa sidaad u sheegtay dhinac walba waa sidaas suuliyadu waa intaad sheegtay xafiisku waa intaad sheegtay qiyaastu waa intaad مش لو عبو locationku waa halkaad sheegtay arinku waa halkaad dhigtay wey meesha yar sida ay tahay waa kiro intaas markii haddana dadka ku filaan weyday macadka madrasadda in badan oo kamid ah meel kale oo kiraa school secondary oo areada aan ka fogeyn ayaanu sidana ku ran karaynaa maalmaha intooda badan meel dhismo kale jiro isaguna oo youth clubka iyo arrimaha aan ku samayno isaguna kira macnaheedu waxa weeyaan waxa shaadibi kira ka bixisaa bishii 3 bildin oo saddexduba kireeyay meel bilaasha hal meel cagta la saarana ha noqotee oo ay ku shaqayso waxaa soo dadaala laga soo saaray ma jiro sida awadeed lacagta kiro aan service kale ku jirin bishii kiro uga baxdaa waa lacag ka badan 7,000 oo pound bishii waa lacag taqriiban ku dhadhow 10,000 oo dollar fikir baa nagu dhashay markaa odhanaya war dee ummaddu qof walba cimri buu leeyahay raggii soo aasaasay raggii hawsha soo qabtay waliba maalinba nin baa dhiibaya ummadda in wax looga tagaa waxuu meesha ku jiro weye waxaanu nidhi waa nin meel bal aynu raadino muddaanu raadinaynay muddaa lagu howlanaa waxaan u malaynayaa muddadaa raadintaas waxay nagu beegantay in ilaa 100 dhisme aanu soo egno oo nala soo tuso 100kaa dhisme waxay runtii wax noo noqon waaye iyo wax shuruucdoodii iyo sharcigoodii dhammaystirmi waaye bay noqdeen gebagabadii iyo guntii waxaanu helnay meel macbad ah oo yahuuddu dhisteen 100 sano ka hor muddo imika 20kii ama 15kii sane ugu dambeeyena iskaba xidhnaa areadana ku dhow commercial road area ku yaalla oo masaajidka u jira ilaa 500 oo tallaabo meesha dibi imika ku jiro ahna meel aad iyo aad u weyn inta dhisan waa 5,000 feet square dhul bannaan oo kale oo intaa ku dhadhowna way leedahay marka waxaa noo soo baxday malaha bulshada iyo communitygu halkuu ku sarfeefi lahaa maanta ilaa mustaqbalka dambe maadaama waddanka la degan yahay ummaddana in qayb laga noqdaana ay muhiim tahay inay halkaasi tahay halkii mudnayd ee ummadda iyo kuwa dhalanaya iyo kuwa dhashay iyo dhalinyarada iyo odayaashaba rag iyo dumarba santarka u noqon lahayd ee ay ka mid noqon lahayd meelaha insha allahu tacaala ay ku badbaadayaan biidnillah meeshii waxaa nimankii yahuudda ahaa waxaanu ku ballanay inay meeshii naga iibiyaan iibkii waxaanu isla dhaafi weynay qiimo ah 3 milyan iyo badh pound 3 milyan iyo badh poundkii waxay yidhaahdeen 10% oo carbuuna waa inaad bixisaan waxay noqotay 235,000 oo pound
235 kun ee baan waanu bixinay 4tii bisha February 2026 baanu saxeexnay heshiiska isaga waxaanu heshiiskaasi qorayaa lacagta inta hadhay in lagu soo bixiyo 9 bilood gudahood oo ka bilaabmaya 4 bishan February ee maalmaha wiigii hore ku beegnaa ilaa bisha September ee soo socota sanadka 2026 waxaan dareemi karnaa lacagtaas waa lacag badan marka dhinacaynu ka eegno waqtiga dhinaca kale haddaynu ka eegnana waa waqti yar cidda aynu u soo qaadnay maanta waa community-ga aynu soo tilmaannay dadka runtii ilaahay subxaanahu watacaala ku anfacay ee awlaadooda iyo iyaguba runtii nasashada iyo nafiska iyo barashada diinta iyo wanaagaba ka helay iyaga iyo carruurtooduba ayaanu ugu talagalnay inay budhiga ka noqdaan barnaamijka mas-uuliyaddiisa inay xambaaraan wixii kale muslimiinta kale markaa ku caawin karaan inay noqoto mas-uuliyad wadareed haddii markaa maxaa ka dhalanaya ilaahay ma qadaree arrintaas sidaa aynu ugu talagalnay oo qorsheynay ay u hirgeli weydo arrintaas waxay kalifaysaa ay keenaysaa in horta lacagta carbuunta ah ee xoolihii ummaddu ay lahayd ee masaajidkaasi lahaayee khayriga ahaa ee charity-ga ahaa akoonkiisa ku jira aanu kusii bixinay inay gubato ilaahay ma qadaro taas waa mid ta kalena waxa weeyaan in laynagalaba noqdo meeshii oo leena shuruuddii baynu kasoo bixi weyn marka mas-uuliyaddaasi waxay u taallaa markaa dadkeennay u taallaa inay mas-uuliyadda xambaaraan oo qof waliba inta uu awoodo iyo waxa karaankiisa qofka fideogani soo gaarayo kuwii horey macluumaadku soo gaaray kuwa gaari doono kuwa imikaba inuu hor fadhiya dhammaantood جزاكم الله خيرا مسؤوليتك نقاط ان شاء الله تعالى ومشروع وين 3 مليون يبر يبر سغال بلود سغال بلود 3 مليون يبر سغال بلود مدو kooban runtii dee markaanu runtii ku sheekeynayno waxyaalaha waddanka dee dadka markay fundraising ururinaya dad ma nihiin inuu dhaqaale haysana oo sidaas maanta nin Soomaaliyeed milyan ku dhiibaya waa yar ama runtii muxsiniinta kale waa laga yaabaa waddanka joogtaa ma oran kartaa idinka laftiina waa soo ururiseen 9 bilood gudahood way ma oran kartaa 3 milyan iyo barkaas iyo 9 bilood waskuuri way soo badan way ha aad iyo weeriye waa khadaro waa sax su'aashu anagu inta aan qadan wadashi badan baan sameynay hadafka iyo ujeedka aan lahayn qurab maaha Soomaalida qurab dadkan wax ka doonayn halkan waxa lagu xisaabtamaa muslimiinta mujtamac weyn muslimiinta waan la tashanay aad baan la tashanay waliba taageero badan baan ka helay dhiirigelin badan qaarkood waxay nagu yiraahdeen 9 bilood xilli badan weey waxay nagu yiraahdeen 4 bilood qaarkood waxay nagu yiraahdeen 4 bilood iyo 4 milyan baan saarnaa beri fursadaha oo Ramadaan anagu eegin waxyaabo eegan ka mid dadka ku xidhan markaska ee muslimiinta ah iyagu eegaya meesha waa xaafadda waa ka caan degmada iyo deegaanka barwaaqo waa ka caan ama la dhanba waa ka caan iyo ingiriiska markasku dadka ku xidhan iyagu eegaya si loola tafaaculayo iyo masaajidada inta masaajidada imaamka iyo dhowr iyo 20 masjid imaamka iyo ragga dhalinyarada ka soo baxay oo macallimiinta ka iyagu saas oo dhan eegaya anana aanu eegayno waxaa noo soo baxday in aynu iska bixin karno 9 bilood lacag ku bixin karno ururina karno waxa weyn maaha waxa la yiri waxa loo baahan yahay 35 kun oo qof muslima oo bixiya min 100 صح gini way 3 milyan barbi ku joogtaa yani waa tusaale weyn maaha inuu qasab soo noqoto tusaalayaan wax weyn lacagtaasi way culus tahay laakiin waxaan u baahanahay dadkan martida u nahay wada gacawda Sheekh Maxamed gudoomiye ku xigeen kula hadlay oo martida u nahay dadka Soomaaliyeed daawan ummadda Soomaaliyeed way awoodaan inay bixiyaan iyagaana masaajidkan awl la taageeri jiray haddana taageera haddana iyaga lagu sugay inay bixiyaan oo ah meesha macbadka ah oo aan sharci badan u baahnayn waa uu la hagaajinaya deetana waa soo galaysaa waa galay dalkan sharci u baahdan in guryaha la bedelo oo laga dhigo macbad oo meel lagu cibaadeysto laakiin isagu ma baahna waa macbad ka guuray macbad cusub buu guuray 100 sano dhowr ama 10 sano dambe muslimiinta haysan doon inta la nool yahay bay u guuraysaa saadirtay waxa loo baahan yahay qof kasta ka qayb qaataaba masaajidka macbadka yahuudiga ayuu raray deetana uu raray masjid صح 9 bilood inaan ku soo dhameystirno anaga ma waa inaga wada rabaa sadarteed waxaan codsanaynaa in 9 bilood la dadaalo rabadaantana ayaan ku soo dhameystirno waliba aad waliba rabadaantana aad in badan keentaa
in badan keeno ama ku soo dhaweyno hadda waa dhamaan kartaa khadar oo ilaawi waliba anigu runtii sheekh cabdi in yar baan doonaya halkaa inaan ku daray way anaga lafteedu hawshan markaanu qaadanaynay markii hore negotiationka wuxuu ka bilaabmay nimankan markaanu nidhi naga iibiya waxay na yidhaahdeen waanu idinka iibinaynaa waxaanu idinkaga iibinaynaa lacagta inaad ku bixisaan 6 bilood gudahood way celcelintii faraha badnayd iyo dadaalkii aanu ku bixinaynay inaanu bal wax macquula ummadda u soo qaadno ayaa horta 9 bilood aanu gaadhsiinayba nimanku niman aanu dhaafin kari weynaba lacagta lafteedu intaa may ahayne waxbaanu kasii jarna marka dadaal badan baanu hawshaana ka galnay arrinta labaad ee aan doonaya halkaan inaan u idaafeeya waxa weeyaan inaan ku daro ee weliba u baahan inaynu halkaa dhexda u wada xidhanno target baanu u samaynay dadka walaalaha ah ee runtii jannada iibsanaya صح waa janno iibsi maaha masale fudud maaha maaha guri iibsi maaha waxaan yaryare soke ee aynu hamigan soke aynu ka sheekeynayna maaha jannu qof waliba iibsanaya beri baa anigoo hargeysa joogaba qisadaa yar baan doonaya inaan ku dhex daro raaciya ha sheekh nin muxsin oo ganacsada oo reer hargeysa ayaa dhul uu leeyahay oo hargeysa ku yaallo waliba meelaha faras magaalaha ka mid ah ilaahay subxaana watacaala hu naxariistay markuu dhintay allah yarxam amiin ayuu yidhi waxaan doonayaa markas islaamiya in laga dhiso dhulkii markuu bixiyey ee waqfay ayaa sheekh allah subxaana watacaala xifdiyey runtii culimada waddanka ka mid ah ayaa wuxuu yidhi oo weliba jimciyad khayriyana madax ka ayaa wuxuu yidhi sheekh xaaji waxaan doonayaa dhulkan inaad igu wareejiso si aan u dhiso oo aan macadkaa diiniga u dhiso baan doonayaa inaad igu wareejiso dabeedna jawaab gaaban ayuu ganacsadihii raxmatullaahi calayhi ugu jawaabay sheekh wuxuu ku yidhi sheekh maxamed weligaa maaragtay buu uri nin kale jannadiisa amaahiya waa hadal weyn runtii hadal fudud maaha nin jannadiisa amaahiya marka caawa waxaanu leenahay walaalaha war nin oona nina jannadaada ha u dhiiban inanay jannadaada cidna ha u dhiibana ku hadlayn waxaa laga yaabaaba camal kasta oo kale ood ku dadaalaysay ood islahayd waa kani waa kii jannada ku geli lahayd in laga yaababa inay si kale wax noqdeene kaniba yahay kii aad jannada ku geli lahayd maxaan maranayaa jannadii anigu aan iibsaday waxaan ka fikirayaa jannadii inaan xaafkeeda qaatay allahu akbar shaqada cusbad ku jirtaa kelmaddan halkan doonaya inaan kusoo gabangaabino waxaanu nimi fundraising kanu way 3 milyan ee badna wax fudud maaha inuu fadhigin laga kacana waa waajib halkan de anagu waxaan u saaraynaa ummadda wacyigelinta exactly houses haddii qof 20 baan bixiyo hadduu 100 baan bixiyo dee meel un bay tagaysaa meel bay buuxinaysaa waa minus wax way ka go'aysaa wixii aynu sheegnay waxaan ka helaa bangaaladu markay ay markaasi masaajid dhisayaan akhuuna baasijaaya sijaayadda inta la eg tahay waad garanaysaa mugsi waa sijaayad iibso marka horta dadka waxaad leeyihin sijaayad iibsada mise waxaad leeyihin sijaayadabadan iibsada me programka haddaan yar ku socdo horta imika horta waa dee hadduun baa la saxeexay mashruuca maadaama imika la saxeexay uu bilow yahay waxaanu soo wadnaa qiimaha sijaayadda waxaanu idiin soo sheegaynaa qiimaha albaabka waxaanu idiin soo sheegaynaa qiimaha daaqadda waxaanu idiin soo sheegaynaa qiimaha jaajuurka waxaanu idiin soo sheegaynaa qiimaha weysada waxaanu idiin soo sheegaynaa qiimaha suuliga waxaanu idiin soo sheegaynaa qiimaha kaarbadka waxaanu idiin soo sheegaynaa qiimaha laydhka gelaya qiimaha mikrofoonka qiimaha sameecadaha wax wala oo masaajidkaasi u baahan yahay baa la qiimeynayaa waa la sarifayaa waa la yaryaraynayaa deni walaba mid ku calaamadso insha allahu tacaala aday markaa ku taala cabdifatax maxamed gabagabadii aan joogo sidaas 2 kelmadood oo dadka khayriga doonaya cabdifatax iyo maxamed maanta uma fadhiyaan guryaha ay leeyihiin sidaa idinkuna waa idinka socon waa soconaa waa sidaas kuwii horena way socdeen de maamulkii masaajidkuna wax socdo weeye kol boqolaa fadhiyaysa laba kelmadood aad kusoo koobaysay dadka muxsiniinta ee maanta wax ka doonaysaan ama fundraisingka aad ka doonaysaan haddii luqadda qalaad nahno maxaad oran lahayd khadarow waxaan oran lahaa anoo usoo koobaya markaska waad aragtaan meel weyn buu iibsa hadda baayacay oo waxna bixiyey 230 kun bixiyey inta ku hareena waa aragtaan
كو قفونا قف كلها كوها لين اسمه غضب adigu suu sheekhu yiri isku waafaqdeen jannada iibsubale sooba jannada ana cid kale haaban cid kale jannada cid kale ku haleyn way hadda qof way ugu xiga ma hayna maxaad ku haleeyay maxaad ba jannadii inuu tukan doona qosada salaada cid ugu haleynayna oo heel bay tukan doona tan ku haleyn taas waa qodobka labaad waxa weeyaan waxaad xasuusataa oo dadka waalidiinta iyo dadka Soomaalida ee muslimiinta waxaan u sheegaya meesha la joogo waa qurbuna waa hawla badan yahay ubadkeena waxaan bixinayno Ilaahay ugu xifteeya nafteena Ilaahay ugu xifteeya waalidiinteen ayay gaariyaan sadaqada oo ajir ka helay inaguna waba kii bixiyo ajir waa ka helina marka waxaan leeyahay la isku haleynina ha loo soo degdego muddo kooban aan hawsha ku dhamaystirno meel kasta joogtaanba dibadii gudu doorta sheekh weyn ognahay meel la leeyahay oo madsama waxaan maayay bariga London alhuda ka jira masaajidka lagu jira iyo qolka yare maanta kirada الهدى أنت حنا ونكرنا إذا تفرعات كيلو لا ما أنت ما شاء الله ما هو فري وروح وقاية إما سمى ساكت بك ويا تاو حمل شيخ هذا كبوابو لما لها وكل وذاك هذا شك وذاك بيقولون هاي بارك الله فيك شيء عضو حسابي مساعدين وحل حسابي لما هذا وحيا وحل حسابي وحنا بري مشروع عن عليس كيس مركي هرب بان نانقرني صح ونسكتشو هاي لكن وحنا بري مشروع عني inaanu ogaano bal horta degmadan aynu ku noolnahay Tower Hamlet aadka u yar juqraafiga ay ku taalo waxa ku yaala baa la sheegay 65 masjid baa ku yaala 65 ka masjid 54 kamidii waa masaajida waaweyn inta soo hadhayna waa mawlacyo yaryar iyo qoobadaha yaryar markii hore baad tilmaantay community-ga Soomaalida la yiraahdo maxay ku leeyihiin numberka masaajidada aynu tilmaanay waxay ku leeyihiin masjid huda oo bedka uu ku fadhiyo dhulka intuu leeyahay aynu day isla wada garanayno kama badna 20 xaggan kama badna 4 fadhiyo aynu isla garanayno xagga sare waxooga aynu u erinayno ma sha Allah ilaahay baa mahadiya ka gaadhay iyo ummadda muslimiinta runtii u kacday waa jazakumullahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka meel fiican bay geliyeen dadka intuu leegay intaasaynu horta waxaan tiya leena oo la sheego aynu horta ku leena waxay la tahay halkaasi waxaan u maleynayaa sadar muuqda su'aal ka dhan waa su'aal isweydiin leh eg masaajidka maanta dee la aasaasay Allah yarxamu waan xasuustaa huda ninkii lacagtii ugu horeeyay bixiyay Allah yarxamu magaciisa ma xasuusteen maanta ma hanti la leeyahay weyn waa sidaas ubadkiisana u dhaxleeyo ma masaajidkan dhisaan maanta maaha maanta ma waxaad wadaan afar shan generation ka bacdi ilay waxaan ku hadlaynaa waa ubadkeena ubadkiisa meel la qaban maayo sadku loo sheekh socon kama lama socon abada haween socdanayo hadaan cidna socon oo taag weyn iswareerinaa marba dhinac baynu guurnaa mar turkiga tagnaa waa kow marna masar bay tagnaa marna imaaraadka guri ka iibsanaa wareer baynu galnaa hadda Nairobi bariyaan qabanaa qaarna way iska noqdaan Hargeysa iyo Xamar iyo meelaha nabadda oo Hargeysa kale aad u degan waa u noqdaan laakiin ma guurina kuwaasna way soo noqdaan hadday caruurtii markaa yeena caruurta wareerini imanka walaalana muslimiinta sheegay Bangladesh iyo Pakistan jidda muslimiinta waxaan ku arkay iyagu dalkoodiiba ma lehe kana yeeshaan ma maqashay ku qabso ku qadimis oo ku qabsadaan bacdaan ku qabsadaan wala leeyihiin xaqna wali sharciga dhagay hadda wasiiray leeyihiin xildhibaanay leeyihiin waa ordayaan meel walba meesha tagtidba waxaad ugu tagaysaa intaasoo muslim sax iyadoo sidaas marka inagu masaajid badan waan leenahay hadda ma yara saadii waxa ku tusinaysaa degmada aynu joogno oo degmada dad badan ku nool yihiin waa degmada ugu badan baa la sheegaa dadka Ingiriiska marka laga sheekeeyo Soomaali waa degmooyinka ugu badan baa lagu sheegaa Tower Hamlet iyadoo haddana sidaa tahay qadar waxa weeye halka masjid baynu ku leenahay horta hantiya masjid huda oo hadda aad u qurux badan si wacan loo dhisay baynu ku leenahay iyo halka aad tiri 5 iyo 10 xaggaas iyo 5 kala halkaas wala waa kiro waa meel kira way marka waxaan ku leenahay ma jiro waxaan leenahay deesaan oo la socda nimanka aan wali hanti helin baan nahay way haddii maanta aan ahay qof barnaamijkan daawanaya صح oo muxsin oo hootana baxsado ama waalidkii wax u bixinaya صح maanta de waan joognay fundraising baan joognay maanta ilaahay khayr ha siiyo suuqii madin dhowr siyaabo baa lacagta loo bixinay صح maxamed daaqow daada markaa barnaamijka exactly waxaan ka helay qardul xasana
markii aad tafsiishay carabida iskuman wanaagsanee tiri war ninkii in yar lacag meel ku hayo ee bangiga iska taalow masaajka amaahi bangiga masaajka dhigo war sheekh ma lacagtaydu aad leedahay intan bangi kasoo saartid exactly idinkeeda amaahiya bal iga sheeka taas maxaa ka ni anaga naamahimis waay barhaale masaajkana waa inay way masaajka anaga naamahimis way taas horta taasoo anaga naamahimis waxaad amaahinaysaa garwadeenka ma ka hadlayay waxaad horta amaahinaysaa ilaahay baad amaahinaysaa allahu akbar dadka hawshan ka shaqeynayaana mas-uul bay kaaga noqonayaan way daadadu ku qanacdade sax taas waa taas way taariikhdaad qorata iyo shuruuddaad u dhigatana waa lagu saxiixaya sax macnaheeduna waxa weeye waa tii ilaahay qur-aanka ku sheegay ee uu leeyahay man da alladii yuqridu allaha qardan xasana amaah wanaagsan ya ilaahay wax amaahinaya ilaahay da amaah uma baahna cid wax siisana uma baahna wahuwa alghaniyu alxamiid غفور رحيم ها سؤال كميسي maadaamay sidaa tahay meel uu ilaahay jecel yahay iyo gurigiisa wixii aad amaahisay ee aad ku dhistay macnaheedu waxa weeyaan waa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abaalkeeda oo labilaaban weliba ku siinaya wey weliba kaaga sii darana waxaagina haddaba ugu soo noqonaya la soco markaa lacagta ay ka soo noqonaysa lacagtu waxay u soo noqonaysaa kawasa qaado kale mashruuciyo socdaan waxaad haysataa 100,000 baad haysataayoo pound maanta ama 10,000 baad haysataaba waxaad tiri warniyo halkan ay ii taalay ama bangi bay ii taalay ama gurigaaban ku haystay baashu riskigeedaa badane masaajka ha la ii geliyo taariikh hablaayana ii foomkaasaa lagu buuxinayaa taariikhda lagugu qorayaa cida mas-uulka ka abaa kuu saxiixaysa taariikhda aad sharuudantay in lagu soo celiyo baa lagugu soo celinayaa lacagtaadii waad ajir heshay waad fadligii heshay oo ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda aad heli doonto xataa qofka kasta oo ku tukadaa masaajidka ajirka uu helo mid lamida baad helaysaa iyadoo qofkii ku tukaday inaan waxba laga dhimin waa qaniimo sideedu taas waxa weeyaan qofkii wax la bixi karana waa taas waa qofkii masaajidka wax amaahin kara wey waa kow qarda xasan waynu karana maxaa kale exactly waxa wax lagu bixin karaayoo kale in dee wax lagu tabaruco oo la sadaqaysto inta jeebka la huro aad adigu naftaada wax u qadinto waxaa kaloo loogu bixin karaa inaad waalidkaayoo dhintay ninka waxaa laga yaabaa waalidkaaynu xasuusanay dee waa aabbaha hooyada laakiin waalidiinta iyaga kuwa sii dhalayna xaq bay kugu leeyihin sida iyaga kuwa laftooda kugu leeyihin marka bahashaa soo koobina silsilada aad ka soo jeedo oo dhan haddaad u bixin karaysa iyaga laftooda u bixi awlaadaada joogta way yaryaryihiin oo way shaqaysan doonaan ha odhanine ilaahay baa ku islaaxinaya oo ku hagaajinayay iyaga laftoodana u sadaqee oo waxaad tirahdaa sadaqada waxaan u niyooday maanta carruurta in ilaahay iigu hagaajiyo ilaahay baa kugu hagaajinaya subxaana watacaala qaar xanuunsanaya baa jira nabigeenuna inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam daawo mardaakum bisadaqa carruurtiina sadaqada ku daweeya dhinacaan ayaan la mooganaanin oo weliba baryahan dambe xaaladaheenu ilaahay ha asturo oo ha abuureye howlo badan baa jira marka wejiyada lagaga qayb qaadan karaa barnaamijkan aad iyo aad bay u tira badan sheekh cabdifatax gabagabadeydii kolley waxaynu gelaynaa muxaadaro aad noo soo diyaarisay oo ramadaanta iyo sadaqada maasha allah insha allah horta marka la bixiyey reerkii halkan kaaga soo qayliyey ee xaggan lagaaga keenay ee adinkuna aad lacagna weydiiseen waxaan ka baqaynaa bahalkii raaban inuu dhammaado bahalka casaado waad ogtahay oo markaad wax yar shaqada soo qabatid waad garanaysaa hagbadiina in yar ka bixisid waad garanaysaa war sheekh dee taasna waan keeri ururaynaayo sadaqadu bilaahi ma waxba yar dhamaysaa mise way mashid maska buuxista horta waa su-aal weyn waa ka jawaabtay laakiin waxaan ka horreysiinaya masalada qarda xasana ee ku soo jiidatay horta walaaladeen eeshiyaanka ee xaggan degan baaba horumariyey laakiin quraanka soo ugu jirto waxa weeye waxaad noogu taabtay waxa weeye waa qof sadaqa bixinaya sadaqa bixi ilaahay waxa maay waa sadaqo sii bixi iyagu waxay ku dareen waxa la yiraahdo qarda xasana nooc kala ah oo ah qofkii lacagtiisii bangigii masaajidku ku shubaya halka intuu bangi ka soo saaro ayuu ka masaajid ku shubaya dabeetana dhigto waa loo soo celinaya ajirkiina waa helaya taas waa inta anytime oo baahdo waa helaya waa inagu hawshan maanta ku muraad fush maqumsi wey qodobka su-aashaada weydiisay ah sadaqada horta inagu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baynu rumaysannah nabigana ilaahay baa soo diray ilaahayna wuxuu wamaa yantiqu can ilhawa in huwa illaa waxyun yuuxa wuxuu ka hadlaa waxy nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu inoogu sheegay sadaqadu maalka maba yarayso
anigu waan tijaabiyo anaa waxba hayn ban 100 ginaan hayo qof ila soo 100kiiba man u direeba الله kun baaban helay ما شاء oo ida ka fileen waliba الله hadii uu kaantay marka waxa weeyaan ilaahay baa yiri qofkii sadaqa bixiya midkii qura maxaa 10 amthaalha baa loogu laalaaba sooma 10 marka 10kii laakiin ilaahay tijaabin ee waxa weeyaan niyadu bixi نيادو بح inaad waxaan wacdiga ku balan qaaday waa dhab niyada inaan hagaajino qofka haduu gani bixiyo ama hal doolar bixiyo wuu helay halka doolarna suul maxay sheegay wuxuu lacagtii inagu qoreed wax ka dhimaya sheekh walibada quraanka sheekhi quraankana ah Allah ku barakeeye waxa fahuwa yukhlifuhuna wa ku soo arortay waruti huwa khayru raziqin raziqinta waruti yukhlifu maashi aad banaysay halkii casaanki ay kada waxay noqonaysaaba green بلاش بحنا balaas bixinaysa minus markooda balaas bixinaysa الله marka way yukhlifu way waxa ka dambe huwa khayru raziqin sheekh Maxamed الله khayru raziqin soo baari ka waxa weeyaan wax bixi hal ugu bixiyo adigana nabiga sallallahu alayhi wasallam labadii malag badaka midna habaara midna u duceeyo kii wax bixiyay maxay ilo wax u daba mari kii kalena ilo qallaji way oo mari ilaahay شيخ nabad runtii ilahayna maqlajiyo doorta insha allah waxaan kala idin sheegaynaa in aanu halkan insha allah bisha Ramadaan culimada aday idinka mid tihiin inaan bal khamiistiya jimcaha barnaamij soo gelin intaan afurta la afurin dadkuna su'aalaha aynu soo weydiin karaan halkaasna maxaa cusub baan idin rajaynaa insha allah hadii ilahay ka dhaweeyna markaas nagala soo qayb gashaan aynu geysano break time baynu yara gelaynaa sheekh 1 minute break aynu gelaynaa dadka bacdi maxaadiradii aynu u tala gashay Ramadaan tiya sadaqada وسداس ayaan ku tageynaa hada qoontaan hawadii sheekh Suusideen iyo culimada keena daawanaya kelmadda gabagabada maxaad oran lahayd masaajidka ما شاء الله جزاكم الله خير آدي أدوى مهسنتيهين إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركيو مشاهدين تا إيدا وضياشا إيو عدو ربي شكن إيو تيفيغن إيو رنتي برنامج كان رجلي أو كحرمة آمين يا رب إيو عدو رو سي قاري دونه آمين برنامج كان رنتي أينو سي باهينو سي أشركا قفكا أينو صدقات دا أو باقينو كإنفاق بحنايا حد فرت هذا التابسين يساوي حيقولي جنتا هوش هاو حينو كشكين إن أشرك يدو كلام الله أكبر آمين يا رب عذر برنامج كاسي قارو يدو كسو في العليس أو مساجكا وحكو بحساب عدة هذا السبب النقطي وأديك إلى الصعود يبقى نوكلها والدال على الخير كفاعلي قفك خير قفك لا تصانا هذا يسوق السمي ولا مديها إلى الصعود صح مركا وحنور لها تارجت بينه لاني بشهر رمضان تارجت كنا إني نقعدنا إني سكضينا وحنا تارجت إذا نوقدنا بشهر رمضان هذين وكبد النواب فلله الحمد الحمد لله لكن بشهر رمضان هوشا مشروع عوين ولا ليال تلمانه وحينو تارجت 1 مليون إن شاء الله تعالى 1 مليون كما هاكي أنا قلنا الميديا كشغل فلو قيمة هذا وهو من كل عقتها 1 مليون كيل لعقت النولها معبد كان لقوا بدبادين لها مساجد لقوا بدل لها ويان فلو قف انتو فلو كسيك على اللعبين شري لشيء شري 1 مليون ما هي ترتو صدقة ويتم وصدقة وي قبرك يبسنيس على قبرك قاعد يبسنيسا جنده قاعد يبسنيسا آخرة وانا قاعد يبسنيسا دنيا آخرة إلهي نحن كبرينا سبحانه وتعالى إنه خير كينا وفتشيو إنه أقبل وحين سمينينه إلهي إنه قارسية بشهر رمضان كو عباديسته كو عمل فلا إلهي سبحانه وتعالى أشر كاي سمين دونان يا عمل كاي سمين أيام أشر كوذا الله من الله بالله نقدره جزاكم الله خير واي شيخ آدي هذا وي بريك بين قلينا هدي إلهي كدقة إمكان لأنه وحين مكاسيس كسون قلنا محاضرة دي بشهر رمضان صدقة أنا وحنون يا مساج كشاطبية وحبة مدركة وقبتي وحبة نو أجي هاي وحبة نو سمايا غيرها ودح قرب وبدك قرآن كحفتسيه إيه مركزي ذلك واوين مساج كي مادة يكون نصته إنها كان اللسان ومهم أنت المركزي مرتبط بس كسون قلنا لبض الشيخ وفد محسينين إما كان الشيخ عبد الفتاح أي مركزي أيان جيتي يهدي لها كدقوا أي محاضرة دي بشهر رمضان يصدق قده إلا بحصله شيخنا كسلو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. We're taking a break, Sheikh. Hamid, we're taking a break, yeah? Okay. Yeah. What have I done? You are mistaken, officer. I don't have a single illegal person here. He is an illegal immigrant and he doesn't have the right to work here. You'll be receiving a letter from Immigration Enforcement very soon.
If you had spent just £10 on the right to work check, you'd not have £60,000 fines. Spend £10. Save up to £60,000. Yeah! At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hasan? The team needs its crucial only 6 runs from just 1 ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's the boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا ليال مانتا وحينو سود ويننا وكود هذلنا أما يرو هذا الكوبان كورن دورنا بشا رمضان إنه سود وينو آياتك قرآنك إلهي كسود شيء بينو إيجينا وحكمدا آيات كوباد إلهي ku waajibiyey soomka bisha Ramadaan oo la waajibiyey sanadkii labaad ee hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam uu joogay magaalada Madiina waxa weeyaan aayada ya ayyuha alladina aamanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat aayada Ilaahay wuxuu ku bilaabay Qur'aanka wuxuu leeyahay akhrisyo kala duwan waxaan culimadu yiraahdeen waxa ugu weyn 3 akhris qofku inuu saxo akhriska koobaad waxa weeyaan oo ugu yar ee laga bilaabay qofka bilowga inagu naqaano waxa weeyaan inuu laftiga alfaada quraanka saxo oo tajwiid ku akhriyo si wacan oo akhriyo sidoo xaqeeda u guto isagoo qaadanaya oo amarka Ilaahay waratil quraana tartiilan qaadanaya waxa ku xiga qaybta qiraa'ada labaad ee quraanka la akhriyo waxa weeyaan macaaniisa la barto qiraa'ada saddexaad waxa weeyaan in lagu dhaqmo oo tagu muhiimsan maqaasida quraanka la fahmo sadarta Ilaahay wuxuu khitaab inoo soo jeediyay wayna la hadlay waynoo dhawaaqay Ilaahay baa inoo yeeray dad la soo Ilaahay baa ku yeeray wuxuuna inoogu yeeray waxa ugu wacan inuu sameyn doono jannadana ku galino ya ayuha alladina aamanu bil muslimiinta dadka iimaanka laga helay iimaankuna waxa weeyaan waa shay aad u muhiim ah oo ka kooban qalbiga laga rumeeyo Ilaahay iyo wixii diinta uu soo dejiyay iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu soo diray iyo in afka laga qiro oo laga dhawaaqo iyo in la sameeyo taynu maanta marayna waxa weeyaan waa soomo waa in la sameeyo weeye wuxuu ya ayuha alladina aamanu muslimiina kutiba alaykumus siyamu waxa leedinku waajibiyay oo leedinku qoray oo waajibidu ku noqotay oo fardi leedin kaga dhigay asiyaamu ina soomtaan waxa soomka la yiraahdo ayaa leedinku waajibiyay waana waxay isla garanayeen marka carabtii luqadda quraanka ku soo degay ku hadli jiray kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun sidii kuwii idinku horeeyayba loogu faral yeelay soomka nagarino sidoo ahayti lagu faral yeelay teena miyay ka duwaneyd mise way waafaqsanayd imise bilood bay soomi jireen taas inagu hadda ma galino laakiin waxa weeyaan xigmadda la'allakum tattaquna xigmadda loo soo dejiyay soomka leenagu faral yeelay waa inaynu helno taqwada marka taqwada waxa laga helaa bisha Ramadaan in la soomo ama soomka guud ahaanba waxa culimadu sheegaan hadaynu u fiirsano alfaada quraanka soomka ama soomkana aynu eegno laba arrimood muhiim ah ku jira kow ordo soomku marka hore waa sir aan la garanayo bayna Allahi wa bayna abdihi ka dhaxaysa Ilaahay iyo adoonkiisa ay ka dhaxaysa sadarteed qofku marka uu soomo isagii Ilaahay wax ka dhaxeeya ay noqotana cid kale ogeyn cidna kuma ogana biya cabtay iyo inaad u yara qarisay wax kale toona lama oga oo aad yara afurtay
laakiin adigii ilaahay bay afxidhanka afka aad xidhan tahay kaa dhexeeyaan sidaa darteed sirtaasi waa sirta koowaad waa sirtii nebigu sal alay xadiiska inoogu sheegay uu yidhi ilaahay camal kasta oo la sameeyo wuxuu ku bixiyaa xasanaad 10 soomka mooyaane soomka wuxuu yidhi anigaa iskale anigaana ka abaalmariya dadka kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad soomku sirta ku jirta waxa weeyaan insaanku quraanka dhowr cadow baa lagu sheegay cadowyada waxaa ka mid ah in ibliis lacanahu allah la inoogu sheegay ibliis waxaa kaloo laynoogu sheegay nafteennu inay cadow inagu tahay waxaa kaloo laynoo sheegay shahawaadku inuu cadow inagu yahay marka ibliisku waddada uu soo maro ee dadka ibni aadanka u soo maro waa shahawaadka iyo naftu waxay jeceshahay saa darteed baa quraanka waxaa lagu yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa'i waalbaniin alaaya aayadda ilaa iyo dhammaadkeeda waxa weeyaan taas ilaahay wuxuu ku sheegay in dadka loo qurxiyey shahawaadka oo ay dumarkii iyo ubadka ragga ah ay ugu horeeyaan deetana xoolihii iyo noocyadeedu kala duwan ilaahay sheegay cadowgaasuu soo maraa cadowgaas waxaa jira difaac laga xidho maadaama cadowku soo weerarayo waxaad u baahan tahay naftaada inaad difaacdid si aad naftaada u difaacdid waxaad u baahan tahay inaad diyaargarowdid diyaargarowgaasi waa difaaca nafta si aad isaga difaaci lahayd shaydaanka naftaada horta waa inaad marka hore tallaabooyinka diyaargarow waxaa nafta inaad laylidid oo aynu tababarno oo u diyaargarowno bisha ramadaan khayrka leh ilaahay waxaan ka bari ilahay inuu khayr nagu soo gaarsiiyo caafimaad qab inagoo weliba aan hubin inaynu gaari doonno qofka markaa waxaa laga rabaa inuu halkaa ka niyeeyo inuu ilaahba inuu gaari doono ta kale ama dhammaysan doono inta uu soomay inay in u khayr badan tahay oo uu ku dadaalo acmaashiisa sirtaasi markaa waxaa nafta waad diyaarinaysaa naftu markaa cadow bay ku xidhan tahay oo madax u ah cadowgaasi waa shaydaanka shaydaanku markaa waxaynu nidhi waddada uu soo maraa waa waddada shahawaadka marka shahawaadkana waxaa la dagaalanta ma jiro cadow kale oo lagu cid kale oo iska difaaci kartaa ma jirto wuxuu ilaahay inoo sharciyey soomka inoo sharciyey inaynu ku dilno shahawaadkii waxay naftu jeceshahay saa darteed baa nebigu sal alla alay wasalam xadiiskii waa kay ku lahaa dhalinyarada markuu la hadlaayey ciddii awoodda inay guursato ha guursato haddii aan awood aynu lahayna ha soomaan xadiisku sidaas waa macanihiisu waa oo kama qaala sala allahu calayhi wasalam waayo soomku qofka wuxuu ka yeeleeyaa hawada iyo shaydaanka iyo waxa ku soo markaa shaydaanka wadooyinkii kuu soo mari lahaabaad horta intuusan ku soo gaadhin ciidanka waa in iska moostid daadkana waa la iska moosahay intuusan ku soo gaadhin baad waddada u dhigaysaa isbaarooyin iyo istaba badan markaa soomka ayaa ugu xoog badan intuusan ku soo gaadhin markaa soomkaa isaga dhigaysaa ila soomku waa junna weeye waa gaashaan markaa gaashaanka adag ee soomka saa darteed maxaa dhalanaya xikmaddu lacalakum tattaquuna wataa la yidhi waxaa laga yaabaa inaad taqwo ka heshaan taqwadu wax sahlan maaha ilahay waxaan ka bari ilahay taqwo ina siiyo taqwada laakiin waxaa halkan lagu khaas yeelay bisha soom saa darteed culimmadu xikmadaha ku jira waa saas soomku asalkeeda waa timirka le soom waxaa la yihahdaa alimsaaq qofku inuu ka istaago oo haysasho iyadoo salaadu waa meeshay iska shabahaan salaaduna imsaak weyn acmaasha ka baxsan iyo shaqada ka baxsan salaada waad joojinaysaa salaada un baad samaynaysaa soomkuna waa sidoo kale waxaa alimsaaku can ilmuftiraati weeyaan mufatiraat waxyaabaha jebiya mubtilaadka ah ee soomta ka hor yimaada ee jebinaya inuu qofku iska ilaaliyo marka halkaa markaynu taagannahay waxaa weeyaan waxyaabaha mubtilaadka soomka buriya waa laba qaybood qayb waxaa weeyaan xaqiiq ahaan soomkay u jebiyaan soomkii way buriyaan qofkaas marka halka adhowta ama qallaha lagu yeesho ama qalliya kafaaraha lagu yeesho tii doontaba ha noqoto aynu ku sharixi doono duruusteena qaadimka culimmadu ku sharixi doonaan oo lagu sheeg lagu faahfaahin doono culimmada Soomaaliyeedna xafidahumullah ay badan ka sheekeeyeen taas waa halka qayb labaad baa jirta oo burisa soomka burisa laakiin uma buriso soomahaani waxay u burisaa ajirkeeda ilaa 5 qaybood bay culimmadu sheegaan oo waaweyn waxaa ka mid ah horta waa acmaasha muxaramaadka qofku inuu ka xanta iyo beenta iyo wixii la mid ah kuwaasi waxaa la yidhi waxay buriyaan ajarka soomka ayay buriyaan sawaabkay buriyaan laakiin soomkii qofkii waa soomaya nabiguna sallallahu alayhi wasallam qofkii waa kii qofkan ka degin hadalka xun iyo waxyaabaha beenta iyo bilaayada aan ka degin ilaahay danka male inuu ka tago sharaabka iyo qofku inuu ka soomo waxyaabaha fudud jirka aad soomisid ma wacna oo uu qalbigii
iyo dhegihii iyo indhihii iyo afkii carabkiiba ay afuran yihiin way ku afuran yihiin oo xaaraantii iyo dadkii walaalaha muslimiinta aynu caayno maagayno wax ka sheegayno dembi shubayno ama aynu waxun ku daawanayno indha waaynu indhihii ilahayna sii nicmada ahaa aynu wax kale ku daawanayno ilaahay uusan inoo xalaalay ilaahayna badbaadiye sidaa darteed waxaa weeye arrintaasi lanna waxaa weeye albaabada uu ka soo galo shaytaanku qofka weeyaan manaafidda ama meelaha uu albaabada u ah iridaha uu ka soo galo waxa weeyaan waa iridaha aynu haysanay labada dhigood labada indhood iyo afka carabka iyo farjiga iyo caloosha wixii soo raaca albaabada haddii aadan xidhin nebigu sal alay wasalam xadiiska wuxuu ku sheegayaa maqsadku ay tahay xaajo inuusan ilaahay dan ka lahayn soomkaaga inaad ka tegaysid ka fudud oo ah cunto bas inaad iska cuntaysid baa kuu fiican macnaheedu weeyaan iyo biyo iska cabo biyo iyo cuntadiiyo fududna waad ka tegaysaa waxaadna ku afuraysaa sharafta qofka muslimka ah ama beenka sheega qofka muslimka ah ama inaad ku mashquulsid waxyaabaha haddayna mashquuliye ee social media waxyaabaha qofka aan macno lahayn qofku halkuu xilligii maadaama ay gaaban tahay xilligu uu ku bixin lahaa wax u faa'iido leh ifyo aakhiraba ama qof shaqaysta noqon shaqo ku jira ama qof digri ku jiro shaqo aakhiro ku jira uu noqon lahaa muslimka lama ogola inuu labadaa u dhexeeyo waxa weeye qofku inuu ku jiro acmaal mar walba waa cibaado saa darteed islaamku waxaa leeyahay islaamku sidiisaba waa noloshaasoo isku wada xidhan hadday ciyaar noqoto hadday noqoto qofku inuu ubadkiisa reerkiisa la joogo hadday noqoto qofku inuu shaqaynayo hadday noqoto qofku inuu salaadiyo masaajid tukanayo hadday noqoto inuu taraawiixtu hadduu noqoto inuu sooman yahay intuba maxay tahay waxa weeyaan waa cibaado ka islaamku wuxuu sunaa'iyada wuxuu dad kaga duwan yahay islaamku maadada iyo ruuxdaba wuu kulmiyaa ruuxdii marka waatan lacallakum tattaquuna baa laynagu yidhi oo waxaa mudan tihiin ama suurtagal ah dadow inaad ilaahay ka cabsootaan cabsi heshaan hadduu ilaahay hadduu ilaahay sidayna yidhi ka waran oo inaguna aynu wax kale ku mashquulsannahay laakiin taqwada goormaynu helaynaa waynu soo sheegnay taqwada waa inaynu ka ilaalino waxyaabaha burinaya oo ah kuwii soomka ajarkooda meesha ka saarayey ama qofkii uu noqonayo qof isharaadiyey oo ku xiiqay cidla haddaad cidla maantaba ku xiiqdid oo aad ku gaajootid oo aad ku haraadid oo aad ku daashid hadhowtana aad dabaalatid waxyaabihii ilaahay inoo diiday ilaahay haynu sugo sidaa darteed ilahay wuxuu yihi ayaamin macduudaat waa maalmo tirsan oo yar oo kooban maalmaha tirsan waa in la soomo marka sida loo ogaado ayaamahaas ilaahay waxaynu naqaano ayuu wax inoogu xidho inoogu dabdiyey kow horta sanadkii bil buu ka dhigay bishaana waynoo cayo xilli waa shahru ramadaan buu inoo yiri waa kow shahru ramadaan haddana si aynu u ogaano sida loo soomayo waxaa laynoogu xidhay xilli la afxidho iyo xilli afka la furo oo la afuro oo soomtii dhamaato labadana wuxuu ku xidhay fajarka saadiqa iyo ghuruubu shamsi buu ku xidhay calaamaadka wax lagu dabdiyo weeye haddana waxaa lagu sii xidhaya intaasoo dhan qofku waxaa loo dabdiyey muxuu ka soomayaana waa laynoo caddeeyey imsaaku nawciyadda uu yahay soom baa la yidhi waa sidii carabtu taqaanay soomka waa naqlin baa lagu sooyay waxaa laga soo raray macnihii luqadda loo yaqaanay luqadda carabtu ay taqaanay ayaa wax lagu daro macno cusub oo sharciya المعنى الشرعي أما الحقيقة الشرعية بقى جوري وحال الحقيقة اللغوية لقيتهم الشرعية بقى لو تجي سادرتت وحويا وحال لنا شيء حدنا لنا حري وحال لقى سوميو يوحى أنا لقى سومي نوالا لنا شيء سادرتت أنت اللقاء قد نبي سوي من دونه وحال لقى تجيا أيضا على كسي وادي دونا لكن إن القف كمسلم كحق الديار جروبه وحور رمضان أنت نفتك بدلي لها isbedelka nafta uu samayn lahaa isbedelka naftu waxay ka bilaabantay in aad u isbedeshid waxaa la yiraahdaa dadka wax coach karim dadka wuxuu sheegay waxay yiraahdaan qofna qof ma bedeli karo laakiin wuxuu ku sheegi karaa talo u laakiin yaa wax bedeli kara naftaadu ma bedeli kara sadarteed bisha ramadaan waa inaynu ku talagalno inaynu nafteena bedelno saad u bedeli kartaa oo noocyo badan tahay qof waliba isaga garanaya meesha xanuunaysa waxaa la nima meesha bugtaa isaga balbashaa
maadaama saa tahay waan kugu soo dhaweynaya waxa weeye taqayirkeena iyo isbedel u diyaar garowno fadal khadar جزاك الله خير عادي يا ما شاء الله الشيخ جزاك الله خير محاضرة هم تقييم كعادي عادي وناسن دي وحنا رجعنا أنا بشيء رمضان نواطن تسمي قفكم وحسك بدل كراه بينو كتاب إلهية حسك الله خير إن ما أنتي نمرك يقول يرتاحي بل هاتن مقرأ قرآن أنا وحنا خيو أخري إلا مقرأ تيك توك كنا وارون وده فيسبوك كنا تنا الدنيا لقى ما قاعدوا لكن محاضرين يمكن إن شاء الله ويسيس عندنا هدي لها كلهم الشيخ عادي يبدو محاضرة إن شاء الله إلهي خيرها كاسيو شيخ عدي للدنيا شاذبية إن لا صحيحه قبل دي إما كبرنامج إن شاء الله سم محمد أغنى وشاعر هل كي لقى صحيح كراسي هل كي لو تبرع كرا وسؤال هذا مهم خضر أنت بيجك نقول لهم وحالة قال صحيح كرا بيجك أونلاين ولا جو أرك كرا هدي قف وكقراء حتى شادبي بيج كيسة أما ويب سايت كيسة وهو صباحية الشاطئ بسنتر حول السوق قرية وأركتن ولا نصدري هل كان وحكوا ترسيات international ahaan dadka dibadaha jooga ay ugu soo bixin karaan way ku taala marka waa doonan doonta khiyaarka adiga ku waabsan ma Ingiriis gudihiisa joogta ma Yurub joogta ma America joogta ma Soomaaliya ma dunida Carabta joogta ee dunida kale ma bariga fog iyo China iyo marka meel kasta aad joogto waad ka baxsan kartaa tawrac masaajid waad ka baxsan kartaa meel kasta masaad ku dira ama EVC meesha doonto ku dir waxa weeyaan waa ku diyaar team diyaara ama koox diyaarana waa hayna mar walba la soo xidhiidhid kula shaqeyn doonta kuna hagi doonta شيخ عبد ما صنتي إلى آخر كاسيو في محاضرات وحرجينا برنامج كيني مانته أنو شادبي مساج كعسب كي حليني أساس كمساج كعسب إن المركز رنتي هذا واحد بدن كبوتين أنا اللي بكل مود بان لا يحي سيد الشيخ ونشيعي استعد هذا يبسو والد كاو إيبي قبل ياجا يمان في الجنة دبرتوسو كاهر رئيسان بعدي علمك الشيخ أنا وشيعي أنت برنامج كلا كل منو لما شادبي حليهن وأنها سنتين جزاك الله خير إلى خير هنسي وحاول نسنا الوضان مساجك ونسنا أنا أخذ الدر وحن لا يهب رمضان كريم دمانتين بقى ورمضان باينا هايسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته